كبعد waxaan jecelahay inaan ka hadlo mas'alad daruuriya oo aan u arko maanta ducaada iyo culimada wadanka jooga inay xoog iyo laxaadka ay saaraan mas'aladaas oo ah mas'ala mutacalliqa ku xidhan kuna salaysan al-iimaaniyat al-iimaan wama jaawara iimaanka iyo waxa ag yaala ee soo ag degaba maanta qof muslina oo ashahaadanaya oo caaqila oo baaliga oo mumayiza oo aan garanaynin inuu khamrigu uu xaaraan yahay ma jiro inuu ilaahay xaaraantimeeyey zinada ma jiro gabadh muslimada oo aan garanaynin inuu xijaabku waajib uu yahay ma jirto inuu ilaahay tabarrujka iyo tazayunka bigayri maa anzala allah fi khariji manziliha wa baytiha ma jirto maca dalik mushkiladda meesha taallaa waxa weeye dembiyada waynu ku dhacnaa laysa min qilati alcilm sababtan dembiga ugu dhacaynaana ma aha cilmi la'aan ina haysata iyo faham aynu ka fognay fahmigii diiniga laakiin musiibada ina haysataa waxa weeye iimaankeenii baa daciifa qofku marka hadduu iimaankiisu uu daciif yahay wuxuu u helayaa ficil waluu sameeyama aqwaal buu u helayaa oo ficil wuxuu u helayaa daliil laakiin qofku hadduu iimaankiisu heer sare uu taagan yahay marka lagu idhaahdo ittaqi illaaha tadrifu caynaah marka lagu idhaahdo ilaahay ka cabso wuu ilmaynaya marka lagu idhaahdo ka joog ilaahay wuu xaaraantimeeyey mas'aladda wuu ka gaabsanaya marka lagu idhaahdo ilaahay ma jeclaa arrintaa wuu ka fogaanaya marka waxaynu u baahannahay haddii aynu nahay ummad ka tirsan ummadda islaamka ah loona yaqaano ummadda soomaaliyeed inaynu laxaadkeenna iyo quwaddeenna aynu saaro caynkeennu iimaankeenna u soo kicin lahayn walaalayaal haddii aad macsiyad ku dhacdid oo aanay macsiyaddu ku damqin ama waajib aad ka tallaabsatid oo waajibka aad ka tallaabsatay aad ka seexan kari weydid habeenka aad ka seexan kari weyd marka waxaad ogaataa iimaankaaga waxbaa ka qaldan waxaan u jeedaa darajadu iimaanku uu taagan yahay marka bal waxbaan ka yara taabanaya hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo ogolaado nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu cid jannada fooda saarayso oo jannada gelayso oo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannada ku abuuray ka faa'iidaysanaysa oo aan mu'min ahayni ma jiro ilaahayna qur'aanka wuxuu ku sheegay inuu iimaanku uu yahay ama dadka mu'miniintii ay yihiin ee muslimiinta dadku ilaahay fadilay waxaanu ku fadilay because camal khayra ayay la yimaadeen oo ilaahay wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah ilaahay wuxuu yidhi wuxuu idinka dhigay ummadda nebi maxamedey ummadihii uu sameeyey tii ugu fadliga badnayd sababtu afdaliyadda idiin siiyana waxa weeye buu yihi nebigu sala allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxa weeye ta'muruuna bilmacruuf khayrka ayaa isfartaan waxa xunna waa iska reebtaan ilaahayna waa aaminteen oo mu'miniin baa tihiin culammadu marka waxay yidhaahdeen islaamku waa laba baal buu leeyahay aliimaanu waalcamal taa aawadeed baynu maqalnaa aayado fara badan oo ilaahay leeyahay aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kuwa ilaahay rumeeyey ee camalka saalixa la yimi
إيمانك المركة حقيبان لغا هلا إيمانك وحا لغا هلا في القلب إيمانك كليها كمتشرو عدود إنه مصارا قربها إنه مصارا عدود إنه كمتشرو إيمانك وحا لغا هلا في القلب قلبي قلنا قلب بني آدم وإثبت بدل بدنيه والله غيابا انتي ان اسو سعودي مساجدك وحن كايمي الشيخ آدم انتي ان اسو سعودي ان كسو لغاية مساجدك إلا ين مساجدك إنو ودنهايقو انتا سو قور إسروغي أو إسبدلي أو نيددو أي إسبدل شيء لغايابا قفرو هل كان يمي انتو سو سعودي إني انتا سو قور إيمان كيسي مبدأ إيسي نيديس أي إسبدل شيء waayo shaydaan baa kaa shaqaysanaya adoo niyad wanaagsan gurigaagii kaga soo baxay oo le waxaan doonayaa in xalaqatul ilm muhaadarad ilaahay lagu xusayo nabiga lagu saliyo sallallahu alayhi wa sallam dadkii saalixiin tahay carabka aan laga qaadaynin inaan ka qayb qaato ayaan doonayaa buu haddana shaydaanku intuu ku bedelo buu ku oranaya bal hebel iskala soo sheekayso hebel la arintaas aad uga baahanayde bataana ka warayso hebel iyo hebel xagga arimuhu marayaan wuxuu bedelayaa iimaanka niyadaadii ayuu bedelayaa lidalik nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri inma summiya alqalbu min taqallubi qalbiga waxa lagu bixiyo qalb wuu isrogrog badan yahay wuu isbedel badan yahay taqallubkiisa ayaa farabadan marka wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam asagoo tusaale inoo tusaya oo doonayay inuu wadnaha tusaale u siiyo wuxuu yiri inma mathalu alqalbi kamathali riishatin mu'allaqatin fi asli ash-shajara yuqallibuha ar-riihu dhahran libat wuxuu yiri wadnuhu wuxuu ka dhigan yahay baal lagu xiray waad garanaysaa baalkii gorayada oo adduunyar ku xidhid laan halka taagan ama laan barta ku taala oo hawadu markay dhinaca kaga dhufataba dhinaciisu wareejinaysa wadnuhu bini'aadanku uu la mid yahay wuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani meel salka kuma hayo waxa inta inoo dheer inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri la qalbu bani aadam ashaddu taqalluban aw asra'u taqalluban من القدر إذا اجتمعت غليانا وحو ودنها بنا آدمكم وحو إسكبت بدل بدنيها بيها كرية هدي إن يرو بيا ضبك آد سارتد ومركا أي بيه كران أي بود كسرعة أيو بنا آدمك ودنيه سرعة ودنيه كسف أذكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أي كسف بدنته وحكى لي عجيبة إنه النبي يقول إنه شيء صلى الله عليه وسلم ووحيري إن قلوب بني آدم ابن آدم كودنه سؤالا كلها مركا الله وضع أروريه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كيف شاء ودنها بن آدم كأولا لبفراد وإلهي إليه سبحانه وتعالى لحظة دي كتشيران صدو الدنو بدل مركز سوري النبي صلى الله عليه وسلم وحي النور رعيه وحي يلي قال وحت هذا المركز النبي وحي يلي اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك إلهي كي وضنياشة تشيديو كي تشيديو وضنها يجا واحد أتشيديسه طاعت هذا عبادة هذا ولا ليا وحكى النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء ومبدأ دنيا ودنهن وكسر هدي عد مساجد كي صوغ شيء وإلهي وكسو هنوني بالروسين كتلك هردغنن شيطان كنفتنا هايس السين شيطان كيما كايد كي سنها آمنين waayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo sheegay iimaanka wadnahaaga ku jira xaaladda uu ku joogo kuma joogayo mar walba oo wuxuu yiri dhageyso xadiidka innal iimaana la
إيمانك وحكو قبوبا وضنها في جوف أحدكم وضنهين أي كقبوبا النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك كما يخلق الثوب سدو خميس كاد حرنتهاي يا عمامد أد حرنتهاي يا سروال كاد حرنتهاي يا كوفية أد حرنتهاي أي شركة وجود الجبوبان أيو وإيمانك أقول وضنها وجود جبوبا أو وضنها نهدي عن إيمانك الجديد وحنا قنا يا بالي وأديكو إسلام والله مؤمن باطي وواد حاجاك سنتهاي أيو الشيطان كوكوسو ما حيا أو كوكوسو صعنا يا أو جورو كدوف صديبا جرن ميسين ما حد كو أركته وحد كو أركته مركز صلاة عادة كون نقطة عبادة كون نقويده وفي رصدة صلاة بعد جلس أيو تكبيرة الإحرام بعد إمامك لقب سنة إمامك مركز لقب ستيد فاتح هذا مركز رافه سورة أخري جرن ميسين مركز ركعات صدحات أدمريس أدوكو قرطادو هدو إمامك وقلدمه أما الركوع كبودو أما التشهد وكبودو هدو قف سبحان الله حق الدم كيدا أديكي باشكية هدي الشكيد أديكي أو عدك سبحان الله أورون ويدين أديكي بو شكي كالكو سيف ورسا أورون سواني وأديكي يا رب حي ملا أنت بلغا غارسية إسكا آم وشبت قل مركز هدو أي إمامك يا إذنك بايسكو دادانيا waxay taasi cadeynaysaa waxaad aamintay iimaankaagu inuu kugu jirayo wadnaha iimaankina wuu gaboobo cibaadadii buu caado kaaga dhigay soonti waxay noqotay caado oo waad soomaysaa markaad soontid macsiyadii ay ka ilaalin jirtay ka ilaalin mayso wixii xumaayay ay ka reebi jirtay ka reebi mayso gaajo iyo haraad umad ka dhaxlaysa marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay wadno iimaanku wadnahaga ayuu ku gaboobaye waxa ilaahay weydiisatana waxa tiraahdaa fas'alu allah an yujaddida al-iimaan fi qulubikum waxa oranaysa allahumma jaddid al-iimaan fi qulubina ilaahay wadnaha iimaanka noogu cusboonaysiba oranaysa